ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka ah tababaran ee Danab ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanka Harboole ee gobolka Jubbada Hoose. howlgalkan ayaa ciidanku si gaar ah ugu bartilmaameedsadeen fariisimaha maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi. wararka ayaa intaas ku darayeen howlgalkaasi lagu dilay xubno fara badan oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo isugu jira horjoogayaal iyo sidoo kale maleeshiyad kale sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi. ciidanka Danab ayaa howlgalkan fuliyay kadib markii ay ka war heleen xogo sheegayeen dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ay isku urursanayeen halkaasi. waxaana howlgalkan ahaa mid qorsheysan ay guud ahaan ciidanku cagta ku mariyeen dhammaan dhufaysyadii dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaas. dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna war ka soo saartay howlgalkan ciidanka Danab ay ka fuliyeen deegaanka Harboole ee gobolka Jubbada Hoose. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu yiri ciidanka gaarka ee komandoska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fuliyay howlgallo qorsheysan oo ka dhacay deegaanka Harboole ee gobolka Jubbada Hoose kaas oo si toos ah lagu beegsaday horjoogayaal sidoo kale xubno sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. howlgalkan ayaa lagu dilay xubno ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas muddo dheer ku jira liiska dadka la baadi goobayo waxaana horjoogayaasha la dilay ay ku lug lahaayeen falal argagixisnimo oo ka dhacay gudaha dalka iyo sidoo kale wadamada dariska ah. intuu howlgalkan socday ciidanka waxa ay gacanta ku soo dhigeen hub iyo sidoo kale saanad ay ururka Al-Shabaab u adeegsan jireen dhibaataynta shacabka Soomaaliyeed. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu soo gabagabeeyay in wali howlgalka iyo baaritaanada ka dhanka dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab uu ka socdo gobolka Jubbada Hoose.